waa saddex gabadh waa gabadh muuminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan cafiifada oo dhowrsoon midda labaad waa weel buuri waa weel xaggana wax ka cuni xaggana way kaaga dhali buuri xaggana waxbaad ka siin calooshana ilmay kuugu qaadi deedna ubadkan bay korin buuri wax tar kale ma la buuri waa naag iga tag kaa tagi mayso naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso naa ubadka kori ma korinayso naa aqalka fadhi ma fadhiyayso naa ilaahay ka baqi mayso naa sidan iska dayni mayso naa iga tag kaa tagi maayo naa nabad ku joogi mayso kii ilaahay adduunka cadaab ula doonu ilaahay qoorta u sudhaa buuri cali bin abi aalib buu ahaa gabdhaha markuu ka warramayay wuxuu uhi gabdhuhu waa saddex muuminad gabadh waa gabadh muuminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan cafiifada oo dhowrsoon hayina dabacsan layinatun oo aad u dhibrinaysa wax walba gabadh hayina mutiica wey ninkayga adeecaysa layinatun oo dabacsan zaman adag markuu ninkayga la soo darsana ninkaygay u kaalmaysaa buu yidhi waxay ku tidhaahdaa xaaladdan adaga maanta nala soo daristay waan ka baxaynaa insha allah waan ka baxaynaa adkayso u dhabar adayg waxa yaruu u dhiibtay u yaryarayn isagay qalbiga iyo niyadday u dhisi waxay leedahay war waa adduunya waxaan in adduunyadu ku qaadane meeshaan u soconno waa aakhire imtixaanka adduunyadu u dhammaadaaye sabir bay leedahay ninkeeda mid waa taa buu yidhi midda labaad waa weel buuri waa weel xaggana wax ka cuni xaggana way kaaga dhali buu yidhi xaggana waxbaad ka siin calooshana ilmay kuugu qaadi deedna ubadkan bay korin buuri wax tar kale ma la buu yidhi midna wuxuu yidhi waa khillun qumal waxay ka dhigan tahay berigii hore maxaabiista jeel lagu xidha ma jirayn ninka xabsi marka nimka berigan xabsiyaa jira berigaa ninka la soo xidhay baa la yidhi afarta addin baa laga xidhayay geed baa la hoos dhigayay timaha ku bixi jiray injirtaa markaa jirkiisa ku dhalan jirtay way dareeri jirtay markaa gacan uu injirtaas kaga qabto uu iska dila ma haysto maanta oo dhan isagoon bay cuni injirtaasi halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni wuxuu yidhi dumarka qaar wuxuu yidhi waa qillun gumal waa injirta ninka maxbuuska dul fadhido gacanuu iskaga qabtana uunan lahayn ayay ninkayga ku noqotaa buu yidhi kii ilaahay adduunka cadaab ula doonu ilaahay qoorta u sudhaa buu yidhi waa naag iga tag kaa tagi mayso naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso naa ubadka kori ma korinayso naa aqalka fadhi ma fadhiyayso naa ilaahay ka baqi mayso naa sidan iska dayni mayso naa iga tag kaa tagi maayo naa nabad ku joogi mayso mithaalkaasuu ka bixiyay cali bin abi aalib dumarka kole gabdhaheenu insha allah waa kuwa wanaagsan insha allah dhahda ila way nala dhegaysanayaan iyaguna khayrka moogta ta koobaad baad markaa noqonaysaa mu'minad ilaahay ku xidhan muslimad hoggaansan oo sharciga ku dhaqmaysa oo gurigeeda aan ka baxayn oo wixii ninkeeda ilaahay u soo dhiibay halkaa bismillah ku leh cafiifad dhowrsoon oo xataa baahida ay qabta ninkeeda ka qarsanaysa ma aha inaad dadka kale maaha waxaa la doonaya wax ka qarsato macal ninkaaga ku qabaa la doonaya baahidaada inaad ka qarsan karto inaad haddaad ka qarsan kartid ninkaaga baahidaada ka qarso baahidaada ilaahay u sheego hayinatun waa gabadh dabacsan layinatun oo jilicsan zamanka adag markuu ninkayga la soo darsana ninkaygay garab u noqotaa sina waad ka baxaynaa ilaahay baan haysanaa hawalwalin xadiid kale waa kii nebigu lahaa allaha u naxariista buu nebigu yidhi ninka habeen salaataleylka u kacay xaaskiisiina kiciyey hadday iska diidana biyo yar ku shaydhiyey gabadha muuminadda ee iyadana habeenka salaataleylka u kacday ee ninkeediina kicisay ee hadduu diidana biyo yar ku shaydhisayna taana allaha u naxariista buu rasuulku yidhi ducada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ma aha duca sabaqat hamoodin inay socotay hamoodin qof kastoo xadiiska nebiga ku dhaqma ducadaasi way ku dhacaysaa
لذلك مجتمع وناكسن الله ينقدقه آمين هذا وف وناكسن أسرد وناكسن مجتمع وناكسن سنكون نغني سامركا والله قشقيا والله دياريا والله دسا مجتمع وناكسن إما كذا زمان كانوا حيا قانا سيدا الله دسا ودوينك سيدا دكتورات الله دسو سيدا بلدنا الله دسو سيدا ورشدها الله دسو سيدا حولها الله دقو سيدا دولك الله قصو صاروا خيرات كجرا لكن بني آدم قصة الله دسا ما يقانان لذلك وفرسوا ودن والبا مدحضو مركز دورشة أي قليان waxay doorashada ku galaan ereyo ma taqaan isticmaalaan dalkan dhisayna horumar maxaa ka qabanaya dalka wadooyin baan nii samayn maxaa ka qaban wadanka oo dhan baan nadiifin maxaad ka qaban tacliintaan kor u qaadi maxaad ka qaban dhakhtarradan bilaash ka dhigi maxaad ka qaban shaqo abuur baan samayn maxaad ka qaban faqriga saboolnimadan la dagaalami nin madaxa oo fagaaraha isla soo taagay ma maqasheen dadku siday ku hagaagi lahayn ma ka shaqayn ma maqasheen سمعت مجرى لا مسلم ولا غير مسلم دad kan hagaajin mujtamacan la ii dooranaya mujtamac beentu ay ku badan tahay weeyaan mujtamacan ku dadaalaya siday run sheegayaan noqon lahaayeen nin madax wasalaal wali ma maqasheen ma jirto limaada maxay oran waayeen lana farsamada ma hayaan iyaku waa fanni cajiiba fanniga waxa iska leh al-anbiya alayhim assalaam thumma atba'a al-anbiya iska leh dadka hagaajinteeda dadka inay la islaaxiyo waa fanniga nabiyadu ay lahaayeen cid kale fanniga ma leh nabiyada u fiirso nabi ba adduunka iman dadka wada been sheegay buu iman dad buu wuxuu soo saaray dad run sheegayaal ah dadka wada daalimiin buu dhax iman dad cadaalad sameeyo cadaalad falaya buu ka soo dhax saari dad wada khawanu iman dadkii khiyaanada badnaa uu ku dadaali dad wada amaano lu ka soo dhax saari dad wada jahliga oo jahalu dhax iman dadkii jahliga badnaa buu ku dadaali dad wada culum ka soo saari dad wada akhlaaq xun buu dhax iman dad wada akhlaaq wanaagsan buu ka soo dhax saari dad been ku wada dhaqmaya buu dhax iman dad wada rusheegayaal buu ka dhigi maxaa beddelaya markaa dadku hagaajinaya shariicada iyo diinta nabiyadu ay la imanayaan ayaa dadka markaa ku hagaagaan marka nabi baa la soo diray waxay ka dhigan tahay shaqadii dadku ay ku hagaagayeen ayaa nabiga ilaahay u soo dhiibay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya halka maanta aan leenahay wadalka ayaan hagaajinaynaa waxa ka awlaysan in la yiraahdo dadkaan hagaajinaynaa alladina imma kannahum fil ardi maxay sameynayaan aqaamu salata wa aatu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatu al umur ummad ay isticmaar u dulaysanayay markan ka qaadnaba ilaahay isticmaarkii iyo dulligii iyo maaragtaan dulmigii lagu hayay aan ka qaadnaba ilaahay yiri maxay qabanayaan oo horeysa laga raba inay qabtaan salaadii oogayaan ba ilaahay zakaday la imanayaan bixinayaan salaadu waa xaq ilaahay zakaduna waa maxay waa xuquuq al-ibaad weeyaano dadka wadanka ku nool aqniyadooda oo kaliya haddii zakada laga qaado masaakiintooda lagu celiyo qof baahan oo miskiin wadanka lagu arki maayo dadku wada aqniya wada maalqabeen bay noqonayaan